بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. siiradu waxay ka mid tahay culumta ugu qiimaha badan ee diinta islaamka. waxay ka mid tahay taariikhaha la barto adduunka kuwa ugu sarsareeya, safka horena markaa kaga jira. taariikhda siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam khaasatan la mid ma aha taariikhooyinka kale. aad iyo aad bay uga weyn tahay, waxayna ka leedahay tixgelin iyo mudnaan gooni ah. sababtu waxay tahay axadka la baranayo waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. ilaahayaa kitaabkiisa ku ammaanay oo ku qiray inuu rasuul alle yahay. rabbi baa yidhi muxamedun rasuulullah, muxamed waa rasuul ilaahay. rabbiyaa soo dirsaday, risaalaa lagu aaminay. aaminkii jibriil ahaa baa loo soo diray. sidaa darteed ayuu u dhaxeeyaa inuu dadka ku xiro ilaahooda, inuu baro wax allaale wixii khayr iyo wanaag ay ku gaari karaan, inuu baro wax allaale wixii sharaf iyo mudnaan ay ku yeelan karaan. xaaladdaa wax sahlan ma aha, ilaahay ayaana u doortay. samadaa lagala soo hadlaa, waxyi baa ku soo dega, jibriil ayaa u yimaada, ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa cinaayeeyo oo ilaaliya. intaas iyo inka badan ayuu markaa isku darsaday. marka yaynan noqonin siirada aan baranayno iyo akhrinta siirada wax sheeko oo kale keliya ah. yay noqonin maaweelo, yay noqon wax lagu qoslo marna laga naxo, marna lagu farxo, balse waa cibaado ka mida cibaadooyinka na loogugu talagalay inaan ilaahay ugu dhowaano subxaana wa tacaala. waay markaad siirada barato waxaad fahmaysaa habkuu nebigu alla u caabudi jiray, waxaad fahmaysaa suu dhaqankiisu ahaa, waxaad fahmi kartaa suu ilaahay ugu dhowaan jiray, mujtamaca suu ula dhaqmi jiray. ilaa ilaahay yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaah uswatun xasana. rasuulka alla waxaa idinkugu jira uswo iyo ku dayasho fiican yay ugu jirtaa. liman kaana yarju allaaha, qofka ilaahay rajaynaya, maalinta aakhirana rajeeya, wadakara allaha kafiiran, wax badanna ilaahay xusay subxaana wa tacaala. idan qudwa ayuu noo yahay, ku dayasho ayuu markaa noo yahay. taasaa marka waxay keeni kartaa qofka inuu alla u caabudo cibaado midda ugu kaamil badan, uguna dhammaystiran. hadduu qofku garan waayo nebigiisa, hadduu baran waayo magaciisa, halka uu ku dhashay, sida xaaladiisu ahayd, sida waxyiga ugu soo degay, suu alle u caabudi jiray, suu u dagaalgeli jiray, suu u soomi jiray, suu u seexan jiray, waxaa ku adkaanayso, ku cuslaanayso in diin fiican uu sameeyo. xataa hadduu yidhaahdo waa cibaadaysana, wuxuu la imaanayaa cibaado qaab daran, wuxuu la imaanayaa cibaado aan fiicnayn, wuxuu qabanayaa cibaado marduud ahoo lagu soo celiyo. ilaa rasuulku uu yidhi: man axdatha fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa raddun. qof kasta oo ku soo dara amarkeena ee kan ah, diinteenuu ula jeeda, oo yidhaahda wuxuu nebi moxamed alle ku caabudin baan ku caabudaya, wixii nebiga uu sameeyaa dhinac mara, fahuwa raddun. saa darteed waa man axdatha. riwaayad kale, man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun. qofkii camal qabtaa, camalkaasoo aan ahayn amarkeena, diinteenna aan ku salaysnayn, asagana raddi waaye, waa lagu soo celinaa oo marduud ayuu markaa ku yahay. taasaa marka kelifaysa ummadda in badan in la baro siirada nebiga, in badan in loo akhriyo qaabka siiradu ay tahay.
waxaan wax badan soo qaadanay siirada kitaabka iyo sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay nebigu inuu koonkan u hogaamiyo, indhaha uu ugu furo, uga bixiyo mugdiga, u sii saara nuurka, uu hidaayadii dalaalada tusiyo, ummadda oo dhan raxmad uu u noqdo. haddii aan xilligii jaahilnimada ka soo gudubno, aan ka bilowna keliya xilligii nuurka uu ka soo degay samada, kuna soo degay qaar xira markuu nebigu ku jiray oo jibriil u yimid, kadibna uu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaqa alinsaana min calaq, iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam. intaa haddaanu ka bilowno, waa maalintii ilaahay hanuun la doonay, khayrna uu la doonay dadka arlada ku sugan. intaa ka hor bay ku jireen dulumaad, waxay ku jireen mugdiyo, waxay ku jireen dalaal, ilaa ilaahay yidhi yusabbixu lilaahi maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi maa fi الsamaawaati wamaa fi اlardi almaliki اlquduusi اlcasiizi اlxakiim huwa aladii bacثa fi اlأmmiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qabl lafii dalaalin mubiin. waxaa alla nasahaa oo u tasbiixsadaa waxa samaawaadkii arlada ku jira. ilaahay melig buu leeyahay. ilaahay waxaa u sugnaaday melig waaye quduus ah oo tahiran, casiis xakiim ah waaye ilaahay. alladii bacثa fi اlأmmiyiina rasuula minhum, waa dadka ummiyaasha carabta ah, wax maqorayaasha ah, aan cilmiga iyo diinka wax badan aqoonin, ka soo dhex bixi rasuul ayay ka mid ah. rasuula minhum muxuu qabanayaa? yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma. nebigaasoo tahiraaya oo nadiifinaya oo sakiyeynaya, asnaamtii waxyaabaha intuu ka daadiyo towxiidka baraya, wax allaala wixii shar intuu ka qubo khayrka tusinaya, wax allaala wixii dalaal ah inuu ka bixiyo, wixii hanuun ah tusaaya. saasaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka uu ku tilmaamay nebiga, huwa aladii bacثa fi اlأmmiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qabl lafii dalaalin mubiin. baadi cad bay ku jireen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala markaa ka hor. idan siirada in lagu dadaalo oo qofka uu ka dhiga tacaalin, uu qaato, uu bartuu ku dhaqmo ayay tilmaamaysaa. sababtu waxay tahay dalaal baa lagu jiray nebiga ka hor, baadi baa lagu jiray asaga ka hor, indhala-aan baa lagu jiray asaga ka hor, xumaan baa lagu jiray asaga ka hor, wax allaala wixii fawaaxisha la samayn jiray asaga ka hor. saa darteed buu rabbi ku tilmaamay raxmad, caalamka oo dhan raxmad u ah inuu yahay. wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. ma ku dirin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala ilaa caalamka oo dhan inaad naxariis u tahay maahane. waxaan ku dirnay adoo raxmad ah, waxaan ku soo saarnay adoo naxariis ah. sidaa darteed ayaa joogistiisa adduunka uu joogay, ummad uu ku dhex jiray darteed yaa ilaahay ciqaab uga rafacay subxaana wa tacaala. ilaahay ma aha mid cadaabaya wa anta fiihim, intaad ku dhex jirto. nebiga intuu dhex joogay cadaabkaa laga ilaalinayay. weli way baryi jireen, waxay dhihi jireen ilaahayo qur'aankan hadduu xaq yahay dhagax nagu soo qub. allahuma in kaana haada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaaratan min aلsamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim. qur-aanku waa xaq, qur-aanku waa run, qur-aanku waa kalaam alleh, qur-aanku wuxuu ka yimid xagga ilaah subxaana wa tacaala. xaq waaye. sida ay u baryootameen amay alla ula hadleen, waxay muteen in dhagxaan lagu soo qubo, sida roobka biyaha ugu soo daato oo kaley u baryeen. ilaahay ma aha mid cadaabayaa lagu soo dejiyey. maxay ku badbaadeen? wa anta fiihim, adaa ku dhex jira. intaad dhex joogta alla cadaabka ka rafacay. waan soo marnay abijahl, khaswatu bader, markii nebiga ilaahay baryey oo wax badan ilaahay u tabarucay, dhankiisuu ka qayliyey, dhankiisuu ka yidhi ilaahayo annaga iyo muxamed keena qaraabagooyo ah, wax aan la aqoon la yimid ilaahayow halaag, beri ilaahayow tirtir. soo in la tirtira ma mudna.
wax aan la aqoon ninkii la yimid abijahl baa la yimid, wax aan la aqoon abijahl baa keenay. shirki iyo dhagax la caabudo asagaa ku dhex jira, keena raxim gooye ah oo la yimid waxaan la aqoonin, oo keenay wax bidco ah, diin khuraafaad ah, wax aan jirin samaynaya. ilaahayow halaag oo tirtir. in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatx wain tantahuu fahuwa khayrun lakum wain tacuuduu nacud. ilaah baa soo dejiyey subxaana wa tacaala, war haddaad gargaar dalbateen ood fadxi weydiisateen waa laydin siinayaa. faqad jaa'akum alfatx, war haddaad ka hartaan oo aad ka joogsataan dagaalka aad nebiga ku haysaan, allah soo dirsaday, dii alluu difaacayaa, waxba idinkama haysto, dantiinu ku dadaala, janno inaad gashaan buu rabaa, cadaab inaad ka badbaadaan buu rabaa, tiibaad diidaysiin. haddaad ka hartaan oo dagaalka aad joojisaan iyo waxyaabaha aad ku haysaan nebiga waa laydiin gargaarayaa. wain tacuuduu nacud, haddiise aad ku laabataan dagaalka iyo nebiga dhibkiisa, cadaabkiinaan ku laabanaynaa. waan soo qaadanay canug yar inuu dilay ninkii sidaa ahaa, waan soo qaadanay cabdullaahi bni mascuud inuu intuu qoorta uga istaagay hadallo ay markaa isdhaafdhaafsadeen. taa waxay tilmaamaysaa qofka ilaahay subxaana wa tacaala sababtiisa dadka uu ku hanuuniyey inuu nebi moxamed yahay, waxa indhala-aanta lagu furay inay sababtiisu markaa tahay. sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u doortay caalamka oo dhan inuu markaa naxariis u noqdo sala allahu calayhi wasalam. siirada aad iyo aad ha loogu dadaalo. habeen inta layska dhagaysta layska taga inaynan noqonin. in inta la baran kara la barto, inta la gaarsiin kara la gaarsiiyo. in allaala inta habeen aan qaadano wax dhaqangelin ku saabsan hadday ku jiraan inaan dhaqangelino, inaan isku dayno rasuulkeena inaan ogaano sala allahu calayhi wasalam, inaan fahamno taariikhdiisa, inaan fahamno suu koonku ilaah subxaana wa tacaala mugdiga uu uga bixiyo sababtiisa, inaan fahamno sida ilaah subxaana wa tacaala uu annagu noogu naxariistay asaga sababtiisa. xaaladahaasoo dhan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala siirada uu markaa dhex yeelay. taasaa keliftay marka in ummadda muslimiinta ay ayidaan, xoogga ay saaraan, ayna ku dadaalaan siirada barashadeeda, siirada ogaashaheeda, siirada sida ay markaa tahay, tilmaanteeda, qaabkeeda iyo sida nebiga sala allahu calayh wasalam taariikhdiisu ay markaa ahayd. maxaan soo baranay? habka uu dacwada ummadda u gaarsiinayay. waxaan soo baranay oo aan soo marnay inuu nebigu dacwo sir ah bilaabay, ummadda uu ka qarinayay. inta saaxiibadii ah, inta aan shar laga rajaynaynin uun baa loo sheegi jiray. waa habka la raba inaan dacwada u wadno. rasuulka sala allahu calayh wasalam asagoo cinaayo alla ku jira oo kitaabka uu wata uu xaq yahay, ilaahay dhinac kasta uu ka difaacayo, haddana isla markii haw ma dhihin, isla markii ma boodin, isla markii ummadda uma iclaaninin. wuxuu sameeyey inuu si tartiib ah ummadda u gaarsiiyo. abubakar buu ka bilaabay, in allaale intii soo dhowdhow ee qaraabuu ku bilaabay. guri baa lagu dhuumin jiray. waxay ka mid tahay heerarka dacwadu ay soo martay. waa inaan la soconaa marxalad walba, xaalad walba oo zamanku uu ku jiro inaan ogaan karno. xilli waxaa jirta aan kor loo qaadi karin, xilli waxaa jirta kor loo qaadi karo, xilli waxaa jirta seeftu ay mamnuuc tahay, xilli waxaa jirta ee la ogol yahay. waxyaabahaasoo dhan waxaan ka soo baranay siirada, waxaan ku soo ogaanay qaabkiisa. heer wuxuu gaaray nebi moxamed uu ku dhunto god. ilaah wuu ilaalin karay, ilaah wuu xafidi karay, asagoo meesha fadhiya sidii ay dhacdayba ee gabadhii mataqaanaa ee abilahab qabay umu jamiil ama arwa, ayadoo intay dhagax soo qaadatay uu asagana kacbada la fadhiya abubakar markay soo degtay tabbat yadaa abi lahabin wa tabba. dhagaxay wadataa, shicir bay u malaysaa, cay bay u malaysaa, waxay u malaysaa abwaan. intay meesha soo istaagtay tiri aw saaxiibka wuu isoo heedaartay maanta, gabay buu igu soo hujuumay. ilaahay baan ku dhartuu yidhi abubakar inuusan gabayba aqoonin. wamaa callamnaahu shicr wamaa yanbagii lahu in huwa ilaa dikrun waqur'aanun mubiin liyundira man kaana xayan wayaxiqa alqowl cala alkaafiriin. shicir ma barin nebi moxamed sal alla alayh wasalam, owlana maba u ahanba, maba u habboon inuu abwaan noqdo. abwaan iyo shaacir iyo fanaan shayaadiin baa raaca. nebi moxamedna xaq buu la yimid.
heesaa iyo gabayaa iyo buranburley waxaa raaca shayطaan. nebi moxamedna xaq iyo qur'aan buu la yimid. wamaa callamnaahu shicr wamaa yanbagii lahu. iska daa in la baro ama uu bartee owlama buu ahanba, maba u habboonuu yidhi ilah subxaanah wa tacaala. wamaa yanbagii lahu in huwa ilaa dikrun wa qur'aanun mubiin. wuxuu ku hadlaya waa dikri, waa qalbi iftiimis, waa caqli iftiimis, waa caqli nadiifin, waa wax dikri ahoo lagu waana qaato, waa wax dikri ahoo ilaahay lagu xusuusto, waa wax dikri ahoo aakhiro lagu xusuusto, waa wax dikri ahoo ilaahay loogu dhowaado, iyo qur'aan mubiin ah. maxaa loogu soo dejiyey? liyundira man kaana xayan. noloshan waxaa loola jeedaa waa nolol iimaaniya qofka leh, qofka ilaahay xaqa la doonay. waayo meyd adduunka joogaa jiro socda oo adeegto gaari wada, waxaa jira qof dhintayoo ummadda ku dhex jira. saa darteed buu ilaah yidhi man kaana xayan wayaxiqa alqowl cala alkaafiriin, qowlkuna uu ku dul dhowoobo kaafiriinta korkooda. taa marka waxay keenaysaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu ilaahay labada xaaladba uu markaa tusiyey. asoo fadhiyana in gabadha shaydaanta ah ilaahay ka difaacay subxaana wa tacaala. markuu yidhi abuubakar maba yaqaanba, bayad gabay ah bay meesha ka tirisay. suuraddan ku soo qaadanay damiim xun, akhlaaq aan lahayn, hadalkiisa aanan rabin, diintiisa aan caasinay, faraha naga qaado. maxaa ka dambeeyey? tabbat yada abi lahabin wa tabba maa aghnaa canhu maaluhu wamaa kasaba sayaslaa naaran daata lahabin waimra'atuhu. inay cadaabgeli doonto in la akhriyo ilaa qiyaama ay ka dhacdo, ilaa qiyaamaha ay ka dhacdo. qof allaala qofkii isku daya diinta nebi moxamed inuu hor istaago ama dhibaato gaarsiiyo ama mashaakil ku abuuro uu ku sameeyana in xaaladdaa iyo gabadha uu la mid yahay. qur'aanka taasuu noo tusaalaynayaa. habka siirada loo baranayo iyo sababta loo baranayana taasay tahay inaan wax badan ka leexano oo aan iska ilaalino. dadka xaaladoodu saas ay tahay, waddadii ay mareen, inaan wax badan ilaahay u dhowaano, inaan khayrkii wanaagga wax badan kula socono. xaaladaasaa markaana loogugu talagalay. qof allaala qofkii siirada ka indhabeela, qof allaala qofkii siirada naca, qof allaala qofka rabbi subxaana wa tacaala ka fogaado diinta ilaahay, dhibaato inuu gaarsiiyo isku talagala, asagay dhibaato u tahay, asay mashaakil u tahay, asagaa dhibaato iyo dhibrafaad iyo mashaakil uu la kulmaa. bacdamay xaaladdu ay sidaa tahay, wax badanna rabbi ha la caabudo, diinta rabbina say tahay aan u qaadano, siirada barashadeedana aan ogaano inay tahay waxa ugu qiimaha badan ee markaa ugu sarreeya. kadib maxaan soo galnay? waxaan u soo gudubnay dhulkuu ku dhashay, meeshuu ku koray, ku barbaaray, in nebiga inta uu ka baxay meel kale oo cudur badan oo qaniin badan oo baadiya uu markaa aado sala allahu calayh wasalam. lee waa ilaahay dartii subxaana wa tacaala. aladiina ukhrijuu min diyaarihim, kuwii guryahooda laga bixiyey. ilaa ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala mar allaala markii dadkii ulul albaabka ahaa ay alla baryeen naarta in laga ilaaliyo, dadka oo in lagu dhex oofsada maca alabraar, in la siiyo wixii rususha carabkooda loogu ballan qaaday. arrimooyinkaasoo dhan markay ilaahay ka baryeen, faistajaaba lahum rabbuhum annii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unha bacdukum min bacd faaladiina haajaruu waukhrijuu min diyaarihim wauduu fii sabiilii waqaataluu waqutiluu laukafiranna canhum sayi'aatihim. waan ka ajibnay buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. faistajaaba lahum rabbuhum, muxuu yidhi annii laa udiicu camala caamilin minkum, aniga dayici maayo shaqaalo shaqo qabtay camalkiisa, min dakar ahaaya aw unha, waayo bacdukum min bacdu ka ahaaday. waad isdhasheen buu dhaha ilah subxaana wa tacaala.